Guurka waa hiigsiga qof waliba uu diiradda saarayo. Ruuxaan weli hantina waxa uu hayaa waddadiisa, balse sida loogu gudbay imtixaankaasi ayaa ah mid lagu kala duwan yahay. Lamaanayaasha qaar maalinta guurkooda, qof waliba waxa uu jecel yahay sida isaga uu ku fikirayay inuu u dhaco guurkiisa. Laakiinse waxaa kala duwan sida arooskaas uu ku dhacayo. Lamaanahan waxaa xafladda arooskooda ay soo jiidatay dad badan. Xafladda waxay ahayd mid ay ka soo qayb galeen dad badan. Sacab iyo hambalyo ayaa howlkii mar qurays qabsaday. Caruuska ayaa xaaskiisa dhinac ciyaaraya, waxaa shidan heeso kala duwan oo loogu talagalay munaasabadda. Aroosadda iyadoo sharfan ayay kursi ku fadhisaa. Waxaa dhinac taagan marna ku wareeganaya saygeeda oo ciyaaraya. Saygeeda dunida ay ka xulatay waxa uu muujinayaa farxad ballaaran. Balse dad badan ayaa siyaabooyin kala duwan kaga falceliya arooskan, khaasatan ficilka caruuska uu sameynayo. Dadka qaar ayaa leh waa dad is-xushay, waa maalintoodii keliya hambalyada la wadaaga. Farxadda arooskiisa darteed ayuu is-celin waayay wiilka. Waxa uu bilaabay inuu horteeda uu ka bidhaamo gabadhii dunida uu ugu jeclaa. Gabadha ayaa marna dhoola caddaynaysa, marna farxad la qaybsanaysa saygeeda. Dadka qaar ayaa lamaanahan ku haysta wiilka waxaa habbooneed in gabadha uu gacanta qabsado oo ay wada istaagaan. Dadka qaar ayaa wiilka ama caruuska ku dhaga hadlayay, balse ogow, lamaano kastoo isguursanaya iyaga ayaa ka og qorshaha arooskooda maalinkaas iyo qaabku u dhacayo. Waxaana suuragal ah in naqshadan iyaga ay ka soo baaraandegeen xilli hore. Hambalyo ayaanu leenahay. Ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.